Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka lagu tilmaamo kuwa aan weli meel marin sharciga isgaarsiinta ama shuruuc kale oo ku saabsan isgaarsiinta, waana midda dowladda hadda ay doonayso in ay xal u hesho maadaama dhanka isgaarsiinta Soomaaliya horumar ay sameeyeen intii burburka dalka, iyadoona hadda gacanta dowladda ay si dhab ah ugu jireen isgaarsiinta guud ahaan. Golaha wasiirada Soomaaliya ayaa meel mariyay sharciga isgaarsiinta waxaana lagu sameeyay isbedelo dhowr ah, balse weli waxa uu sugayaa meelmarinta baarlamaanka Soomaaliya. haddaba maxay muhiim ugu tahay meelmarinta ama ogolaanshaha baarlamaanka xeerka isgaarsiinta Soomaaliya ee kasoo gudbay golaha wasiirada? isgaarsiinta sideedaba haatan dowladda Soomaaliya oo dhan gacanteeda kuma wada jirto. waxaa jiraan shirkado khaas ah oo ku howlan howlaha la xiriira isgaarsiinta. dowladdu marka caadiyan waxaa wanaagsanaa lahayd oo sharaf badnaa lahayd inay soo bandhigto sharci ansixinayo in ay imaadaan shirkado ganacsi iyo hay'adaha dawliga barnaamij ay ku mideysan yihiin ama kambaniyo ay ku mideysan yihiin oo afka cilmiga dhaqaalaha loo yaqaano public private partnership, oo ah shirkado 50% ay leeyihiin dowladda, 50 kalena ay leedahay dad ganacsato ah oo ka madax bannaan dowladda, si hadhow howl hufan dadka loogu wada qabto. saas habboonaa lahayd, laakiin sharcigani in la ansixiyo waa sharci aad faa'iido ugu leh dadka shacabka. dhinaca kale, maamulayaasha shirkadaha isgaarsiinta ayaa dad badan ay qabaan aragtida ah in ay kasoo horjeedaan meelmarinta xeerkan, iyada oo loo maleynayo in ay ka baqayaan in ay bixiyaan canshuur badan iyo lacagta leysanka. waxay dadka qaar soo jeedinayaan in dowladda ay madax banaaneyso shirkadaha isgaarsiinta, balse dowladdu ay ka qaadato canshuurta xaqa loogu leeyahay. isgaarsiintu shirkadaha shirkaduhu aad ay u horumareen oo Soomaaliya muddadii ay maaragtay dowladdu ay baabacsaneed, shirkaduhu shaqooyin badan bay dalka u qabteen. Midna shirkadda Hormuud oo kale waxay qabatay wax laga sheekeyn kara ma ahan, waxay qabatay wax ballaaran bay qabatay. dalkoo dhan bay maanta isgaarsiin u tahay, dalkoo dhan bay wada gaartay. marka anigu waxaan oran lahaa sharcigu xaq bay u leedahay dowladdu inay furaha la wareegto, laakiin shirkadaha inay u madax bannaan yihiin shaqada ay haystaan aad bay u fiican tahay. shaqada ay hayaan waayo dalka wax weyn bay u qabteen. saakay waxa weeye magaalooyinka dhan markii laga soo waco ninka geela keensada Soomaaliga ceelkaas soo taagan buu soo wacay oo leeyahay wargeelii baan keenay, maxaan sameeyaa oo lacagtii soo tur, geelii baa soo arooray. markaasaad lacagtii u turaysaa. halkaas waxaa ka arkaysaa shirkaddu inay aad u horumartay. meelaha shirkadahaas ay ka jiraan oo dhanna aad bay u horumareen. waxaan oran lahayn marka dowladdu canshuur iyo ha ka qaadato, ha u dayso maamulka iyo shuruucda ay hadda ku shaqeeyaan shirkaduhu. wasiirka wasaaradda boostada, isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dowladda Soomaaliya, injineer Cabdi Canshuur, ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay dalbanayso in baarlamaanka si degdeg ah u ansixiyaan xeerkan si loogu dhaqo dowladdan ay u hanato furaha Soomaaliya oo shirkadaha isgaarsiintu ay hadda ay adeegsadaan. dowladda hadda doorkeeda waxay tahay sharciyadii lagu shaqeey lahaa, xeer nidaamyadii lagu shaqeey lahaa, wixii kale hagi lahaa, iyo haddii dhib uu soo gaaro dadweynaha wixii laga qaban lahaa. marka doorka dowladda waa ka sharcigana waa la meel mariyay. golaha wasiirada waxay meel mariyeen 22 bishii Juun ee soo dhaafay. haddana wuxuu hor yaallaa oo 10 bishan la hordhigay golaha shacbiga ee baarlamaanka gacanta ku hayo. waxaan rajaynaynaa in insha Allah dhawaan la ansixi doono. marka ayay cadaan doontaa doorka oo ah in la sugo maalgashiyaasha wax ay maalgashanayeen hirarka iyo waxyaabaha ay ku shaqeeyaan la kala nidaamiyo. aqoonyahan Cabdi Xaliim ayaa waxa uu dhanka kala qabaa in dowladda Soomaaliya ay muhiim u tahay in furaha Soomaaliya ay la wareegto lagana wareejiyo gacmaha dowladda ka baxsan. sideedaba talada ugu sareysa waxay ka go'daa hoggaanka ugu sareeya ee talada dalka hayo. haddii dowladdan Soomaaliya hoggaankeeda uu go'aansado in waxyaabaha xuquuqaadka ay u leeyihiin sida furahaas oo kale in ay la soo wareegaan, waxay xaq u yeelan doonaan inay helaan. laakiin haddii ay ka cajisaan ama sababo kale oo muuqda iyo sababo qarsoonba ay uga baaqsadaan, sida dowlado badan oo hadda lasoo dhaafay aysan iskugu dayin, aad bay u dhib badnaan doontaa. laakiin haddii ay u dhabar xirtaan waxay xaq u yeelan doonaan inay dib u helaan una hantaan furaha Soomaalida, maadaama furaha Soomaalida hadda saan ka warqabno gacmo Soomaaliyeed uu ku jiraa, laakiin gacmahaasi ma ahan gacmo dowladeed, waa gacmo private.
bishii May shirweynaha qaran ee wadatashiga isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda oo muddo 3 maalin ah ka socday magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan xubnaha dowlad goboleedyada ee dowladda dhexe xubnaha ka ah wasaaradaha u qaabilsan isgaarsiinta waxaana looga hadlay sidii qaab qaran loogu wajihi lahaa arrimaha isgaarsiinta dalka waxaana xilliga wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dowladda Soomaaliya injineer Canshuur uu sheegay in baarlamaanka Soomaaliya ay horgeyn doonaan sharcigaasi. Abdullaah Maxamed Ibraahim Goobjoog Muqdisho.